marwada laga soo doorto ismaamulka Wajeer Fatuma Geedi ayaa markii ugu horeysay ka hadashay nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay muuqaalkii galmada ahaa ee loo ekeysiyay marwada ninkaasi ay haatan booliska gacanta ku hayaan ayay marwadu sheegtay in ay arintaasi ku faraxsan tahay warbixin amuraas ku saabsan bal hayno dulmar mar kale wariyahayaga Maxamed Boobe Askar wakiilka dumarka ismaamulka Wajeer Fatuma Geedi ayaa markii ugu horeysay ka hadashay muuqaal been abuur ah oo loo ekeysiyay kaasoo todobaadyadii u dambeeyay qabsaday baraha bulshada iyadoo ka hadashay maxkamadda Kiambu halkaasoo la soo taagay Douglas Baya oo la aaminsan yahay inuu yahay shakhsiga sameeyay muuqaalka foosho xun ayaa waxa ay halkaasi ka sheegtay in dadka iyada ka soo horjeeday doonayaan inay dhaawacaan sumcadeeda Fatuma Geedi ayaa sidoo kale u mahadcelisay dhammaan dadkii garab istaagay taageeradana u muujiyay xilliga uu soo baxay muuqaalkan been abuurka ah ugu dambeyn garsooraha maxkamadda ayaa xukmiyay in eedeysana Douglas Baya dib loogu celiyo xabsiga mudaayiga muddo 2 toddobaad ah si booliiska ay u soo dhameystiraan baaritaanada ay wadaan